بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسر هذا برنامج كان يدبك هذا الغيب وحن كجهل لدونا قرالكي أما ورقدي ومدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو ومدحوينها مدحينات كيسو دماضي ودوان كقرية مشالي كشاعي ورجيس كا the foreign policy لقال يهي ودن كمريكان wargeyskaasi qoraal dheer oo qoray maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ku sheegay ama ciwaan uga dhigay ha igu eedaynin dib u dhaca doorashada Soomaaliya waxaynu eegi doonaa qoraalkaasi iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha uu kaga hadlay waxa ay la joogaa saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle Jaamac oo soo dhaweynaya bal hadda waxaad ka warantaa qoraalkan madaxweyne farmaajo oo qoray iyo danta uu kale yahay iyadoo xilligan la sugayo in kulan la qabto رئيسul wasaarihii uu dadaal wado in la isu keeno garabyadii kala duwanaa la rabo in doorashadii heshiis laga gaaro la rabo in qoraal noocana oo xasaasiyadan xambaarsan oo dhibaato kaga sheekeynayo oo uu madaxdii gobolada qaar maaragtay dusha cambaar uga tuurayo oo noocan maaragtay iyadoo horeyna loo yiri madaxda waa inay ka gaabsadaan hadallada xanafta keenaya bal hadda ka waran qoraalka waxa xilli ku soo aadiyay bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ba waxaan leeyahay salaamu alayhi calaykum nuurow de qoraalkaasi ama qormada ama maaragtay faalada uu maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore Soomaaliya uu ka maaragtay uu kaga hadlay arrimaha dalka gaar ahaan arrinka doorashada waxaan u arkaa wax hadda maaragtay iska olole doorasho ah oo aan hadda wax macno oo hadda ay xambaarsanaydna totally ma jirtaba hay way eedaynin yaani maxaan ku idhaahdaa to dib u dhaca doorashada macnaheedu jaamac macnaha xambaarsada waa u tagi doona in xilligan ay ku soo aado qoraal noocani waa qayb waa bilowga ololaha doorashada ee isagu uu maaragtay mar kale damaca uu kaga jiro in uu maaragtay to ku beer la xawsado shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo dadka maaragtay to maadaama sumcadiisi ay dhimatay dhulka ay gashay oo ku sifoobay hogaamiye kooxeednimo uu maaragtay to qarka u fuulay wax la yiraahdo maaragtay kali talisnimo oo awoodeed buu waayay uu san maaragtay to ka gaabiyeen arrimahaasi oo dhan oo si weyn shacabka Soomaaliyeed aamin bixi ay ka aamin baxeen ayuu maaragtay to isku dayay bal inuu dib u soo nooleeyo maxaan ku dhahay to wax uun kamida waxyaabihii maaragtay sumcadiisa uu ku maaragtay hagaajin lahaa marka waa dib u soo noolayn iyo maaragtay xodxodasho iyo aragtida maaragtay ama dareenka shacabka oo soo jiito wuxuu afkiisa kaga cilbixi waayay ayuu maaragtay to ma isleeyahay armaa qoraal dadku ay kugu fahmaan oo la wadwadaa oo la sheegaa oo marka halka ay ka soo baxdo xogaa taageero la yiraahdo wallahi ninka waa la dhibay maxaan ku idhaahdaa to waa buroona oo waa garnaqsi iyo eed sheegasho aan maartay la garanaynin meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka socdaan midna yaani warqadda markaad si guud u fiiriso waa eed sheegasho iyo maxaan ku idhaahdaa to nooc yar waxaan garnaqsina u muuqda oo haygu eedaynin aniga ayaa lagu eedayn weeye hadda marka su'aasha oo iman doona jaamac warqadan marka nuxurkeeda fiirno waxay xambaarsan tahay aad u ballaaran oo ugu jeedinaya dawlad goboleedyada markii galmudug iyo hirshabeelle iyo ra'iisul wasaaruhu garabkiisa ka baxeen waa kii shirka jaraa'id qabtay ee shacabka Soomaaliyeed baan la hadlayaan xaqiiqada u sheegaya xilligaas muxuu waxaan hadda uu soo qoray uu xilligaas uga hadlay waa inta xilli la heshiis la naawulayo ra'iisul wasaarihii dadaal wado shir 20ka bisha May oo bari la maaragtay ama bari damba la naawulayo la isugu yimaado intuu xilliga ku soo aadinayo muxuu habeenkaas uu shacabka hortaagnaa uu sheegay waxaan hadda sheegay wixii habeenka uu sheegay iyo waxaan hadda wax ay ku kala duwan yihiin oo muuqdaba ma jiraan habeenkaana dad un buu eedeeyay qaarna waa aflagaadeeyay marka maxaan ku idhaahdaa haddana waa sidii oo kale wax hadda ay ku kala duwan yihiin ma jiraan marka intii uu af Soomaaliga inoogu sheegay umba waxay laga bedelo af Ingiriis laga dhigay markii la Soomaaliyeeyana sidii un bay tagaysaa dad baa dhib ka wada anigu dhib ma wada anigu ceeb ka salin baa haba yaraatee wax mas'uuliyad dalkan in uu isaga ka saaran yahay ma moodidba ilaa iyo hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatooyinkii dalkan ka dhacay intii isagu uu hoggaanka ahaa dhacay la wada og yahay ma qirsana mana yaqiinsana inay ka dhaceen dhammaan dhiibistii qalbi dhagax weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaan ku idhaahdaa to qaraxii Zoobe qaraxyadii kale tirada badnaa kii ex control wixii baydhaba ka dhacay
wixii ka dhacay dhuusamareeb isku dayadii faraha badnaa hantida maqan oo 48 milyan US dollar oo lacagtii maxaan ku idhahdaa to khasnada ama banka dhexe ka maqan waxaasi oo dhan farmaajo marna kama hadlayo farmaajo waxa u muuqda kursiga laygu haystaa hebel baa amarkayga diiday eedda anigu malihiyo kuwaasaale marka waxa weeyaan qofku markuu garnaqsanayo ama wax uu eedaynayo kow waa isaga wixii ka dhacay ee khaladaada kolka hore inuu qirto markuu khaladaadkii ka dhacay qirto oo uu qaybta maaragtay mas'uuliyadda isagu uu leeyahay uu muujiyo sida ay dooniba ha ku dhacday marka kadib ayuu wax eedayn karaa oo dhibaatooyinkii dhacay amaba maaragtay waxyaalaha lagu eedaynayo uu sababayn karaa sida ay ku timid oo uu dad kale u saarin karaa laakiin anigu waxbaba ma geysanin haba yaraatee maamulkaygu waa ceeb ka saliin weligii dhibaato ma geysanin qof lagama dhiijinin xamar dhiig kuma daadanin dhuusamareeb dhiig kuma daadanin baydhabo dhiig kuma daadanin maxaan ku idhaahdaa to gada dhiig kuma daadanin meel walba waxa weeye wixii aan samaynayo dhan waxay ahaayeen xaq bay ahaayeen waana ku qumanaa ilaa iyo haddana waan iskula qumanahay qaraxii zoobe dadkii geystay dhibaatadii ka dhalatay shacabka Soomaaliyeed maxaa dawlad ahaan aad uga qabateen ma uga cudur daarateen dhiibistii qalbi dhagax sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ahaa dhiibistiisii oo masiibo qaran ahayd 4 dekadood oo Itoobiya lagu wareejiyay oo sabab loogu wareejiyay aan la ogeyn hal heshiisa weligii baarlamaanka maanu horkeenin maxaan ku idhaahdaa wixii eed ahaa iyo wixii dhibaato ahaa ee intii xukunkiisu uu jiray ay ahayd in uu shacabka Soomaaliyeed la wadaago waxna ka cudur daarto waxna uu tunka saarto waxna uu dad kale dusha u saaro wixii dhanba uu dhaafay ee doorashada kursiga laygu haystaa muhiimadu waa inta waxa meesha yahay aan hadaladiisii qayb ka mid ah soo qaato wuxuu yiri madaxweynuhu dib u dhaca doorashooyinka dalka ma aha mid anigu aan rabo inaan xukunka ku joogo sida ay been hawaasiyadu ku doodayaan waa curyaame siyaasadeed dawladda federaalka uga timid qaar ka mid ah maamulada xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya been hawaasiyadu waxay ku doodayaan in aan anigu rabo inaan xukunka sii joogo oo kursi jacayl aan halkan u fadhiyo laakiin sidaas ma aha waa curyaamin iga timid dhinaca dawlad goboleedyada haye kelmadaasi ma waxa aan ku sheegayo yaa la eedeynay who is been hawaas muhiimada laga hadlaa moogta waa isaga هذا اللي افترض كم مايا واسقوا اad the theory Soomaaliya taladeeda waxa loo dhiibay ninka la yiraahdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo fagaara loogu dhiibay isaga lagu wareejiyay ummadoo dhan baa marxaati ka ahayd waa loogu mashxaraday waa loogu alaraasay markuu arko in been hawaasiin iyo dad waxaas maaragtay to dawladnimada Soomaaliya lid ku ay caqabad ku noqdeen shacabka Soomaaliyeed inuu sheegay ahayd Soomaaliya garan waxa maanta uu sheegayo 3 sano ka hor ama 2 sano ka hor bay ahayd inuu noo sheego oo dadka uu sheego oo leeyahay been hawaasiintuna waa kuwa la yiraahdo Soomaaliya garan isaga marka iska hadlayo qoraalka isaga hadlay muxuu ku joogaa meesha sharciga uu ku joogo waxa qaad qoraalkiisa kamid ah yaani in maaragtay si uuna u imaanin maxaan ku idhaahdaa to firaaq dastuuriya wax noocaas ama meesha aan uga bixin maxaan ku idhaahdaa nidaamka dawliga ah baarlamaanku waxay meel mariyeen xeer hoosaad ay ku sheegayaan amaba ay ku ansixiyeen in mas'uuliyiinta la doortay ee joogta ay bedeli karaan mas'uuliyiin la soo doortay waxba kama jiraan been way qodobkaas ma qodobku si buu u jiraa sina uma jira laakiin isagu soo jeclaaba u qortay qodobka waxa weeyaan baarlamaanka maanta jooga ma aha baarlamaanka maanta jooga baarlamaankii sagaalaad ayaa wuxuu ansixiyay in baarlamaanka maanta jooga maya ka sagaalaad ee xilligaas markii ansixinayeen in uu bedeli karo xildhibaan la soo doortay macnaha baarlamaankii sagaalaad baa waxay ansixiyeen baarlamaankan sagaalaad waxa bedeli karo baarlamaan la soo doortay oo kale ma aha ka madaxweynaha kursiga madaxweynuhu kuma jiro Soomaaliya garan tiibuu ku darsanayaa teeda kale waxa ka maqan baarlamaanka ansixiyay 2020 buu ku leeyahay baarlamaanku ansixiyay Soomaaliya garan marka waxa weeyaan waxa meesha uu ku qoray iyo waxan maaragtay waa wax uu iska wada dabayo hor imaanayo waa wax isaga hadana ku sii ah maaragtay lid ku ah wuxuu ku doodayaa meesha wax la iska fahmi laayahay ama dhibaato ka taagantay waxa weeye jidgooyo loo dhigtay hadafkii dawladdeedu oo ahaa maaragtay inaan qof iyo cod dalka gaarsiiyo isla markaasina kooxo abaabulan oo aan doonaynin inay doorasho qof iyo cod wadanka ka dhacdo iyo jidgooyo ay dhigtay waa ay kooxahaasi abaabulan
kooxaha abaabulan waa la iska fahmayaa waa dadka mucaaradka maaragtay ama qaabka uu wax u wado war sidan macquul ma aha ninkii yiraahdo oo dhan wuxuu u arkaa cadowga isagu arkaa oo maxaan ku yahay maamuladii markii arintii la isugu hor yimid qaabkii aad ku qaban lahayd doorasho qof iyo coda soo keen baa la yiri shaxdeedii iyo qorshaheedii keen iyo qaabka u dhacayso ma doorashada qof iyo codka waxay u yaqaanaan ama uu ilaaynoogu sheegay kun qof in la keenayo inay kunkaa qof codaynayaan oo ay fayl gelayaan oo xildhibaan ka dooranayaan doorashada qof iyo codka ee la inoo sheegayo waa mid noocaas weeyaan yacni in gobolada waqooyi oo kale ka soo qaad ama Somaliland oo kale xildhibaano iyo maharad yaa loo rabaa soo ma aha in dad la soo aruuriyay inta xamar la isugu keeno ay fayl galaan oo la yiraahdo hebel doorta waa nooc isagu ugu talagalay inuu ku soo baxo oo la yiraahdo xildhibaankiiba in halkii kursiba kun qof baa u codaynaysa saddex xildhibaan baa ku tartamaysa saddexda xildhibaan ay ku tartamaysa mid buu isagu wataa midkaas loo codaynaya doorashada qof iyo codka uu sheegayo ee dadka lagu khaldayahay horta waa midda waa doorasho aan nooc dadbanayn qof iyo codna aan ahayn laakiin isagu uu maxaan ku ilaahay u yaqaan doorasho qof iyo coda marka xaqiiqda marka laga hadlayo cid jidgooyo u dheeyatay ma jirto hadii xitaa midda uu diyaarin lahaa waxay ahayd inuu ka sii hawlgalo oo la sii diyaariyo oo dhaqaalaheeda iyo farsamadeeda iyo maamulada maxaan ku ilaahay la doonayo inay doorashadu ka dhacdo wixii gudigeedii la sameeyo laga hawlgalo oo la dadaalo oo la qorsheeyo oo arintu ay noqoto mid maxaan ku ilaahay muddo 2 sano ka hor si bilaabata tiyo 5 bilood ay ka harsan tahay buu yiri waxaan galeynaa maxaan ku ilaahay doorasho qof iyo coda dalka isagu male qof buu ka yahay mas'uul baa looga dhigay dalka qaadana lama dhihin moogtahay waa farmaajo wuxuu moodayay in la yiri dalka adaa iskale moogta waxa dalka in la siiyay iyo dadkaba fikir noocaas ah ka muuqda moogta marka aragtidiisa fiiriso in la yiri dalkan hoggaan u noqo hoggaanna kaliya kama tihid maxaan ku ilaahay waxa tahay gudoomiye oo wixii dhankii loo bato mas'uuliyiinta qaranku markay isu yimaadaan dhankii loo bato yaad raacaysa wixii go'aana ee aad qaadanaysana waa meesheeda taa kale madaxweynaha Soomaaliya waa ilaaliyaha dastuurka waa isku xidhaha hay'adaha dastuuriga ee dawladda wax awoodda u leeyahay waa taliyaha ciidanka qalabka sida Soomaaliya garan wax sharci oo isaga ka imaan kara ma jiro shuruucdu way ku dhamaadaan marka waxa weyn awoodda uu leeyahay iyo maaragtay meesha uu ka hadlayo yaanba islahaynba sidii nin dalka iyo dadkiiba la siiyay oo lagu la dhegan yahay amal iska dhigaya awoodda dalka Soomaaliya dastuurku wuxuu siinayaa ra'iisul wasaaraha iyo hay'adda fulinta isaguna hay'adii fulinta ma aha waa madaxweynihii waxaan ku ilaahay waa head of maxaan ku ilaahay head of government weeyaan dawladii dhamayd ee Soomaaliya isagu madaxeedii yahay kaliya shuruucda ay baarlamaanka labada aqal soo ansixiyaan yaa u imaanaysa taasoo marka isagu ama ka hor imaanaya ama maartay uu qalinka ku duugaya markaas waxay noqonaysaa sharci aad baa maasan tahay aqoonyahanka Soomaalida lagu magacaabo Faysal Cabdirooble waxa uu ku doodayaa cataato madaxweyne ayuu ahaa waxan ma ku raacsan tahay waa eedayn calaacal dad qof wax eedaynaya aragtay waa qof calacalaya weeyaan Buntland iyo Jubbaland baa sidana yeelay Buntland iyo Jubbaland baa xagga ka socon waayeen been hawaasi wax ka socon waayeen waa kan bay noqdeen dariiqin baa jidka ay gashay wax يعني waxaad moodaa hanti isagu uu leeyahay in lagu haysto waxani dalkii Soomaaliya taladiisii iyo mas'uuliyadiisii inay tahay dalkuna inuu federaal yahay kuma xisaabtamayo oo maamul goboleedyada mid waliba deegaanka iyo dhulka maamulkiisu uu ku isman yahay isagu uu hoggaan ka yahay mas'uul uu ka yahay dawladda dhaxana ay tahay inay uga dambayso dawladda dhaxa awoodaheedu waxa weeye waa lacagta oo ay maartay lacagta iyo maxaan ku ilaahay jinsiyadda iyo arrimaha dibadda iyo maxaan ku ilaahay iyo xuduudaha ama waxaan la yiraahdo immigrationka afarta awood bay leedahay wax kale oo ay leedahay dawladda dhexe ma jirto Soomaaliya garan wuxuu rabaa marka inuu maamulo maxaan xafiisyadii wasaaradii waxbarashada iyo tii caafimaadka iyo tii hidaha iyo dhaqanka ee maxaan ku maamul goboleedyadu ay lahaayeen uu doonaya inuu maamulo wuxuu rabaa inuu soo magacaabo taliyaha CID da ee gobolka maxaan ku ilaahay galguduud oo kale oo isagu inuu rabo uu ka soo dhigto madaxweynihii gobolka muxuu qabanayaa marka hadda wuxuu isagu maamul goboleedyo u aqoonsan yahay Puntland iyo Jubbaland inta kale wuxuu u yaqaanaa maxaan ku ilaahay gudoomiyayaal degmo ama gudoomiyayaal magaalo wax noocaas u yaqaana dawlad goboleed uma yaqaan dawlad goboleed
markuu Jubbaland iyo Puntland uu ku soo celcelinayo kuwan kale inaysan maaragtay wax miisaan lahayn oo macna ayna lahayn oo ay yihiin wuxuu isagu keensaday yuu maaragtay ka dhigayaa حتى إنه إسكت دود قاضي هيد مكتب يجاه معمول قبلات يدا لكن إنه يجاه قار معمول قبلات يدا أما Jubbaland يبدو بس لا يرى إنه يجاهدو كونا معنى تريسا مركب مهمة ده وحيت هاي نوع معركة ون شاء أو استير معركة إن ضدك وكدون يهدنا قلوب تودين وكو معركة تسويتو ويجاهدو واحد عيب أنا وحبا كمالا هينه نمان كان علىها إد مركب أنكتشيد منين يسكت ديان ويسكتشيد فيصل وحوليه هاي مدحوينه نيكول لورنشري أيام مركي وحلكيسي جدًا وهاي أما ماركت وكح فشلمي الدنيا ده كسر عرتي إسعسلي كنا عطاته معناها كنا على إنه سمارت واجب كيس جدًا وهاي إنه يهاي ماركت إنه سام خائن الوطن هاي إنه سام خائن هاي بكون ضايعون tan iyo taas marka Faisal uu isbarbar dhigay waa isku mid hadii waa nin maartay fashilmay oo qofka markuu de fashilmo naftu waxay la cararaysaa oo sidoo isku difaaci lahaa eedahana uu isaga leexin lahaa tan farmaajo iyo tan Nixon waa isku mid anu khayr wadan meehi anu eedan melihi aniga eed yaan la saarin dib u dhaca doorashada eedeeda markuu leeyahay yaani ummadda Soomaaliyeed waxay aragtaa farmaajo maanta inuu khayr wadan yahay inuu dalkii dhamaa iyo dawladnimadii Soomaaliya uu ku ciyaaray in uu ummadda Soomaaliyeed baa u aragtaa qaybtan kale waa inta in yar isagu uu xoolihii ummadda siiyo weeyaan 4-5 qof oo Facebook la yiri ka dhawaaqa oo xoolihii ummadda agoonta laga soo aruuriyay la siinayo ma aha Soomaali ma matalaan farmaajada Soomaali ma matalo sida Faisal uu leeyahay marka muhiimadda waxay tahay in uu dadka Soomaaliyeed aragtidii ay ka qaateen 4 sano meel cidla ana dadku kamayna qaadanin xaqaa'iq iyo waaqac dhaba oo ay ku doodaan bay haystaan Ethiopia wuxuu ku heshiiyay wali farmaajo inuu ma sheegin Soomaaliya garan Abiy Ahmed markuu lahaa looma baahan doono 3 safiir oo ka kala socota Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia oo tagta maxaan ku dhahaa Geneva iyo New York tagta looma baahan doono hal mid ha tagaya geeska Afrika maxaan ku dhahaa ma yeelan doono 3 madaxweyne hal mid uu yeelan doona mir walbana uu isagu garabka ku hayo ee uu gacanta ku hayo uu si jawaab ka bixinaynin yaani waa khiyaano qaran weeyaan annaga iyo Ethiopia waxaan isku meel wada og yahay Eritrea waa la isku soo qaadan karaa waa isku mid waa khayaan wadamiin kaasina hawshiisii buu gabay kana hawshiisii buu gabay kan waxa u dheer khayaan wadannimo oo in uu dalkii cadawga la hoos galay Ethiopian Soomaaliya hoos geeyay Eritrean hoos geeyay laakiin waan hoos geeyay ma oran had inuu ina dhahay fiicneed soo ma ahayn oo la ogaado oo marka laga tashado wax Abiy Ahmed baa wuxuu farmaajo sheegi lahaa inoo sheegaya mar walba Abiy Ahmed baa sheegaya maalinku laha waxaan rabaa colaadii iyo wixii inta laga soo gudbo wiilka uraaga ee Addis Ababa jooga inuu Muqdisho u shaqo tago oo maxaan ku dhaahdaa uu isdhexgalka bulshada ay noqoto mid 10 milyan oo Ethiopiaanu ay maxaan ku dhaahdaa 5 sano ugu horeysa ay ka macaashto yaan rabaa markuu lahaa way sabab Abiy Ahmed baa inoo sheegaya Soomaaliya bad bay leedahay min cirif ilaa cirifa biyaheedana ma cabaan buu moogta maraakiibna ugu ma xidhna kama faa'iideystaan annagaas ka faa'iideysan marka waxa weeyaan wixii isaga wax lagu haysto eedaymaha loogu jeedinayo waxyaalahaas kamida dhiibistii qalbi dhagax baa kamida waxa qalbi dhagax uu u dhiibay Abiy Ahmed buu u dhiibay Satiibeela buu u dhiibay gabru u dhiibay ku sahay Dhisaleen buu dhiibay xilmar Dhisaleen gabra joogay Soomaaliya marka Dhisaleen joogo gabra atoora ahaa oo joogay Dhisaleen malax xilkood xilligaas bilowday hadda ay rabto marka waxay dooni ba han noqoto khiyaanadii uu galay iyo wixii uu inagu soo galay yaa kala fog meeshii marka shacabka Soomaaliyeed ay gaareen markuu arkay ayuu wuxuu ku calaacalay anigu eeda malihiye eeda kuwanaale iyo eeda kanaale Soomaaliya Axmed Madoobana wax uma dhiiban danina waxba uma dhiibanin qorqorna waxba uma dhiibanin guud laawana waxba uma dhiibanin gareenna waxba uma dhiibanin isaga wax loo dhiibay aqliga hadda uu meesha ku fadhiyo iyo sharciga uu ku fadhiyo kaliya